ramadaantan waxaad ku arki doontaa goobtan ilmo in aan soo dejinayno tusaale ah 30 mawduuc oo gaar u ah anshaxa guryaheena oo aan ugu talagalnay maalin kasta inta aynu ku jirno bisha Ramadaan. Mawduucyadan ayaa ah kuwa ku saabsan anshaxa akhlaaqda ama qiyamka aynu leenahay. Waxaana ugu talagalnay in ay caruurta yaryar ka qayb qaataan soo gudbintiisa iyo soo jeedintiisaba. anshaxa sodonaad waa cidna ma xamano. Bar ilmahaaga in ay xantu xun tahay oo marnaba wanaagsanayn. Tusaale ahaan, bar aayadaha quraanka ah ee Ilaahay inoogu sheegay in ay xantu wanaagsanayn. Adiga waalidka ahna qofnaha ku xaman adigoo ilmahaaga dhex fadhiya. Xantu waa ganacsi qoys oo caruurtu ay ka dhaxlaan waalidkooga. Ogow waxa tahay macalinka koowaad ee ilmahaagu leeyahay. Anaka cidna ma xamano. Iftiimi mustaqbalka ilmahaaga. Waxaad ku iftiimisaa baridda anshaxa wanaagsan ee diinteena iyo dhaqankeenaba, si aad uga dhisto caqliga oo aad u koriso dadnimadiisa iyo damiirkiisaba.